Luka Modric oo mari kara wadadii Karim Benzema. Manchester City oo sameysay taariikh ay 3 kooxood kaga horeeyeen Champions League. Julian Alvarez oo isku qoray taariikhda kubadda cagta. Xidiga khadka dhexe kooxda Real Madrid Luka Modric ayaa lagu soo waramayaa in uu si weyn uga fiirsanayo in uu ka tago garoonka Camp Nou xagaagan si uu lacago badan ugu dhaqaaqo kooxaha Sacuudi Carabiya. Xidiga reer Croatia ayaa mar kale ahaa ciyaaryahan muhiim u ah Los Blancos intii lagu jiray xilli ciyaareedkii dhammaaday, isagoo ciyaaray 52 kulan dhammaan tartamadoo dhan, waxaana uu dhaliyay 6 gool halka uu caawin ka noqday 6 kale. Wararka ayaa sheegaya in xidiga 37 sano jirka diyaar u yahay inuu heshiis cusub u saxiixo Real Madrid, laakiin Luka Modric ayaa haatan la sheegaya inuu si dhab ah uga fiirsanayo inuu ka tago Real Madrid iyadoo heshiiskiisa uu gabagabo marayo. Sida laga soo xigtay wargeysyada Isbaanishka, xidiga khadka dhexe ayaa haatan ka fikiraya inuu dhaqaaqo horyaalka Sacuudi Carabiya, waxaana uu go'aan ka gaari karaa maalmaha soo socda. Kooxda Manchester City ayaa ku guuleysatay tartanka Champions League kadib markii ay garaaceen kooxda Inter Milan kulan ka dhacay garoonka Istanbul. Gool uu dhaliyay xidiga Rodri ayaa Manchester City ku hogaamiyay koobkii ugu horeeyay ee tartanka Champions League. Kadib ku guuleysiga Champions League, kooxda Manchester City ayaa isku qortay taariikhda tartanka. Kooxda Manchester City ayaa koobka ku qaaday guuldaro la'aan iyagoo aan wax guuldaro la kulmin xilli ciyaareedkan Champions League. Kooxda Manchester City ayaa ciyaartay 13 kulan Champions League xilli ciyaareedkii dhammaaday. Manchester City ayaa badisay 8 kulan halka ay barbardhac gashay 5 kale, isla markaana aan laga badin wax kulan. Sidaas daraadeed waxay noqotay kooxdii afraad ee sidaas sameysay kadib kooxaha Manchester United, Barcelona iyo kooxda Bayern. Xidiga kooxda Manchester City Julian Alvarez ayaa sameeyay taariikh aan abid laga sameynin kubadda cagta. Alvarez ayaa Manchester City kula guuleystay Champions League kulankii ka dhacay Istanbul ay la ciyaareen kooxda Inter. Alvarez ayaa kulankii xalay galay isagoo aan hore ugu guuleysan 3 koob oo kala duwan. Xidiga reer Argentina ayaa xulka qaranka dalkaasi kula guuleystay koobkii adduunka ee sanadkii hore. Sidoo kale Alvarez ayaa Manchester City kula guuleystay Premier League, FA Cup-ka xilli ciyaareedkan. Sidaas daraadeed Julian Alvarez ayaa noqday xidigii ugu horeeyay ee taariikhda kubadda cagta ku guuleysta 4 koob oo weyn. Guud ahaan waa naga intaa barnaamijka ciyaaraha. Fadlan dadku cusub tahay like noo saar, subscribe, share garay si barnaamijkan asxaab badan u gaaro. Mahadsanidina.